بسم الله. أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قفل بو مصر كوك فديا كسلامة. مقعي وابسي محاج حيفي. مدحوينها سؤال شاهدينها وحتى أرد مركب وهم بلينا وأنا هاد علينا يا دلالة ذو كيس تلك قبيل كذا قبيل قف كذا أنا مسترا وكذا مدحوينها ونكما سيها. After that sida loo soo doorto maanta arkay waa u hambaleyna marka doorshiisa mar la hambaleyna sababtoo ah qof ugu soo dhiyo hambaleyda ma weyn ee hambaleyda ka hormarina isleeyahay marka madaxweyne waa ku hambaleyna after that su'aasha ku weydiina waxay tahay waxaa jirta deegaano badan oo cadawga laga xoreeyay deegaanadaas yani deegaana la xoreynaa bacdeen shacabkii way marxabaysiin dawladii rabaan waxay ka soo baxeen cabur badan بعدين دولة مركا سوق شو ديجانك بحسمين يعني وحد عن إن ماشي إن سوق قلنا السوق نبي جي لو قال أري لو قالوا لا مرحبا ما المكيد من مركا كلابتن رجع مركا قارت اللي سكوليو ما حكى قرشة ماشاس. ما هسنتها بس ما سؤال كلا أن قادنا محاكاة قرشة سنارين تكوساب سنين قبل هذا أما مقالوين كقاركود عيدا كلان كنا بحان نيكا وذا مرايدها وتهلوك جيو ميكروفونك رالي هذا بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما هذه أمان ودن وحي أسقنات الله وين ugu horeyn magacayga waa Abuukar Xaaji Gobdoon marka hadda waa kulan dadweynaan ka tirsanahay laakiin professionkayga waa journalism trainer oo saxaafadeed aan ahay wasaaradda warfaafintana waxaan ka mid ahay mas'uuliyiinteeda in aan xuquuqdayda shaqo helo oo shaqaale rasmi wasaaradda warfaafinta ka tirsan ayaan ahaa xilligii Maxamed Siyaad Bareedamaadkiisa kulliyadda saxaafadda ka baxay muddo sanada anagoo shaqaale ayaa dawladda dhacday kadib BBC Media Action kan dhowr mataqaana sano la soo shaqeeyay wasaaradda warfaafinta markaan ku noqdayna rag saaxiibaday oo huwa aan anigu madax u ahaa jiray ayaa geeska ii geliyay aniga rag saaxiibaday ah oo Xasan Sheekh Maxamuud ay qaraabad dhow yihiin oo wasaaradda warfaafinta raali noqo su'aasha ugu oo xuquuqdoodii shaqaalenimo loo diiday nina waa nina waa part time job waxaana loogu diiday Xasan Sheekh Maxamuud dartiis su'aasha anigana Xasan ay shaqaaliyay habeen aan dood wada ku weydiiyay su'aal Gobdoon su'aashaada oo gudub su'aashayda aan gudbaa horta alxamdulillah ilaaha mahad leh waxaan hadda joognaa hal sano oo ka baraka badan 13 maalmood ka dhiman 5 sano la soo dhaaf galabta waxaan ka soo baxay wardhiigley eki suuqa xoolaha waxaan soo bajaaj soo qaatay ilaa inta aan ku imid nabadda iyo isdhexmarka iyo ammaanka iyo dadku si isku rabaan wax la malayn karo maaha waa alla waa ogaadi wax la malayn karo maaha ciidamo aan wiligay arkin oo nidaamsan oo qofka maskiinta gacanta qabanaya dadka waayeelka ma taqaan laamiga goysiinaya ardayda baabuurta ka joojinaya Gobdoon ayaa maasan tahay dadka halkan jooga dhabenta waa ogeen aad oo maasan tahay su'aashaydi waa maasan tahay walaalkay waa maasan tahay mikrofoonka iska dhiib fadlan bas ma su'aasheedii ahayd madaxweyne soo dhawow degmooyinka laga baxo waa maasan tahay Gobdoon waa maasan tahay bas ma baba degmooyin ciidanku inta qabteen ay su'aala kaca uga soo baxeen ma jirto laakiin degmooyin sida daata laga hadlay ciidanku inta qabteen culays cadawga uga yimid awgi ay dib u gurasho xeel dagaal ka sameeyeen waa jirta mana badna waa xanuun badan tahay laakiin inta badan waa arin laga fikiro kolkii hore safarkii hore oo aniga madaxweynaha ay aad noogu badneed ciladaas laakiin hadda kolkan waa cilad la wada og yahay oo aad iyo aad looga tabaabushaystay meel laga baxo oo dhiig badan uuna ku daadan ma jirto waana meesha hadda guuldarooyinka ay hadaati ay walaashay ay soo hadal qaaday ka mid tahay raalli ka miin dadkana waad garanaysaa degmooyinka badan ciidamadu markay tagaan dad uguma tagaanba ayadoo dadkii laga watay tagaan marmar qaarkood inay soo noqdaan qaarkood
laakiin arrintaasi siyaasadda dowladda ka mid maaha in laga noqdo meel la qabsaday ka mid maaha laakiin wuxuu waa dagaal ogaada waxa waaye xarago mar walba laguma socdo goobdoon waa mahadsan tahay faallada sheegtay hal problem oo dadka Soomaaliyeed dhaqankii dowladnimada xoogaa waa naga qaloocan yahayo waayaan daba toosina ku soo wadna waana soconnaa meel qurxanaan hadda maraynaayo aad loogu faano laakiin waxaa ka mid ah madaxda qoyskeeda iyo qaraabadeedu waxaad u malaysaa ninkii madax noqday qoyskiisa iyo qaraabadiisa inay xuquuqdii muwaadinimo inay beerdareeyeen madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirka ugu sii wada xildhibaanka waxaa la leeyahay walaalkiisa xagga tagay in adeerkiisa xagga joogo nin baa xagga sheeganayo marmarka qaarkoodna waaba lagu colaadiyaa sida hadda goobdoon uu sheegayayo xuquuqdii aaba looga joojinayaaba in uu nin madaxa qaraabo la yahay wiilkan ama gabadhan marka waxyaabaha jiro xaqiiqada dhibta xanuunka badan laakiin inaan ka gudubno aan rabno waay laakiin waxaan rabaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed madaxda waa muwaadiniin oo adikaaba madax ka dhigatay ehelkooda iyo qaraabadooda iyo ilmahooda iyo qoysaskooduna waa muwaadiniin aniga inaan madaxweyne noqday gabadha aan dhalay iyo wiilka aan dhalay iyo kan ila dhashay iyo kan abtiga u ahay kan adeerka u ahay xuquuqdii muwaadin kasta u lahay ayay leeyihiin ma gafayaan aqoontooda inay meel ku tagaan hadday ganacsanayaan ay ganacsadaan haddii ay maxaan ku rahay soconayaan ay socdaan ay xaq u leeyihiin marka waxaan qabaa madaxdana waa horena waa u dhawaan ugu celinayaa yaan laga jicin hebelaa qaraabo la iyo hebelaa kan la hadduu qalad leeyahay qofka uu qaldamo sharcigu dalka leeyahay ha la geeyo haddaan anigu dhalay iyo haddaan ila dhashay haddaan abti waayba ha la geeyo laakiin inuu aniga qaraabo ila yahay inuu wasiirka qaraabo la yahay in ra'iisul wasaaraha qaraabo la yahay inuu xildhibaanka qaraabo yahay in loo colaadiyahay waa wax oo afkaar raqiis oo aad iyo aad u dambayso oo dadkeena aan rabno inuu ka yimaadaan ugana ducaynayno waaye waa mahadsan tahay goobdoon adinka mudan goobdoon waa kugu soo noqon doonaa raalli noqo